ويدوركني وعد ويدوركني وعد بالغو دوكسدا وعد بالغو ديرسدا وعد بالغو دداليسه أقويان كاغا دورود دوينو عد كاغا سي musharax xildhibaan Saleebaan Axmed Carab Saleebaan Dheere oo tartamaya golaha wakiilada gobolka Togdheer iyo musharax xildhibaan Mukhtaar Cabdi Maxamuud Baaryare oo sidoo kale u tartamaya golaha deegaanka degmada Burco kuwaasi oo ka sharaxan xisbiga u codaya xadhiga ka jaray 25 xafiis ay ugu tala galeen inay taageerayaashooda ugu ololeeyaan xafiisyadan oo ku yaala xaafadaha kala duwan ee ah duleedka iyo gudaha magaalada Burco taageerayaashooda iyo qaar ka mid ah waxgaradkii soo xuray labadan musharax ayaa ballan qaaday inay hiil iyo hooba la barbar taagan yihiin waxaanu la dardaarmaynaa dhammaan bahweynta ee taageerayaasha musharaxiinta aan magacooda xagga hore ku soo sheegay waxaanu taageerayaasheeda ku wacyigelinaynaa in habeen iyo maalinba ay u socdaan oo u taagnaadaan sidii aynu u hanti lahayn dhicid ka biqi maynee ragga dhicidda ka baqayaabaa sidaa isu waaniyee innagu insha allahu tacaala haddii ilaahay ka dhigo dhicid ka biqi mayno laakiin waxa inagu eeba inaynu kaalmo hoose ku soo baxno waxa aanu maanta ku guulaysannay sidii aanu musharaxiintaas si midaysan ugu soo saaray inaannu si midaysan codka u siino wuxuu yidhi hadduu gabay bilada leeyahay iyo baawar lagu faano baasawina carrabay buu habeenkaa ilaah bara isagaba dar shalay soo baxay ayay baratansiiyeen bandarna caasimaa loogu go'ay ina bidaanow berrina hallaaseen inaga baqasku wacad waxaanu aad u soo dhowaynaynaa labadaa musharax oo nagaga yaal kasha iyo laabta oo aannu isleenahay maanta waxa qabad dhaba xaafadday u qabanayaan way ka dhasheen xaafadda dadkoodii baa jooga way ka dhasheen waannu u codaynaynaa waa soo dhowaynaynaa aad iyo aadna waa loogu lixibooya waxaa idiin caddaynaysaa ururka soo baxay ayaa idinku filan araggaa arkaysaan labadan musharax ee yimi maanta xaafadda Aadan Saleebaan sidaa xooggaa lagu soo baxay ee taageerayaashooda aan loo kala harin haddaanay xaafadda gudoomiyaheeda weli xildhibaanna caynkaas oo kale lagu soo baxo maan arag waxaan leeyahay labada musharax Saleebaan isagu baarlamaanka uu qabanaya marmadaba noo imanaya laakiin Mukhtaar waan wada joogi doonaa waan wada shaqaynaynaa imikana diyaar baan u nahay inaan wada shaqayno codkeega isaga baan ugu ridanaa waaba bilaa shaqafa xildhibaanada dhan waa soo haystaan laakiin isagu wixii banaan baa u yaala labada xildhibaan waxoodu waxaan ku soo dhaweynaynaa oo aan u taaganahay boobaadka u taaganahay labada xildhibaan ee u sharaxan bahweynta Baa Axmed xildhibaan Saleebaan Axmed Carab iyo xildhibaan Mukhtaar Cabdi Baaryare ayaan soo dhaweynaynaa halkan waa xaafadda Aadan Saleebaan waxaa looga diyaara in xadhiga laga jaro laba aqal oo xildhibaan loo qalabeeyeen oo doon xadhiga laga jaro waana xildhibaanadii ugu horeeyay oo yimaada xaafadda dhan inta la soo istaaga labada xildhibaan baa ugu horeeyay waxay ka rasmi sheegaysan codkayaan u haynaa labada xildhibaan baa soo haynaa xildhibaan la aragtaa si baa mid taageersan yahay waa aragtaa muuqaalkooda mu gaaleeyeen codkanaga waa naga diyaar codkaygu fartan baas kale neefo la qabana ma jirto diyaar baan idinahay rag iyo dumar haween iyo ragba naga gudoonta soo dhawaada musharaxadeena sharafta leh aynu ilaa maanta bacadka u taagnay waxa weeyaan gurigan aan ku soo dhaweynay guriyo dhan waa la soo furay taageerayaasha noolaada guul iyo gabadhnimo ayaynu leenahay insha Allah bismillaahi kariim musharax xildhibaan Saleebaan Axmed Carab Saleebaan Dheere oo u sharaxan golaha wakiilada gobolka Togdheer iyo Mukhtaar Cabdi Maxamuud Baaryare oo sidoo kale u sharaxan golaha deegaanka Burco ayaa taageerayaashooda ugu baaqay inay u diyaar garoobaan maalinta codaynta oo ay maalmo kooban ka harsan yihiin maanta waxay ahayd afurkii xafiisyadaasoo tiradoodu dhammayd 25 xafiis aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay in bulshadayadii ay sidan isu kala garba taagto dhalinyaro haween waayeel iyo waxgarad kalaba aad iyo aad baan runtii mar labaad iyo mar saddexaad baan kaga mahad celinaynaa maanta waxaan oo bilaabay halgankii taageerayaasheeda ardayadiina soo xulay iyo kuwa kaleba waxaan ugu baaqayaa ballanteenu waa 31 May insha Allah tacaala anagu xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee cid baanu ka sharaxanahay halka waxa idin ka cad
inaannu nahay musharaxiintii cadaalad iyo daryeel dadkuna horseedina insha allahu tacaala kaambeynku waynu ku soo dhow yahay muddo badan baynu ku soo jirnay sunti badan baynu u soo gallay dadaal badan baynu u soo gallay inaynu ku guulaysanno haddii ilaahay inoo qoray inaan wanka gobolka Togdheer ama degmada Burco aan laynagu haysanay aynu inagu inoo hadal la'yahay taana fadhi iyo ku iman mayso iyo in la dhayalsado haddii inta inoo hadhay oo ay iminka ugu badan tahay diyaar garowga iyo xafidaad kaarar baynu in badan u soo dadaalaynay geed dheer iyo geed gaabanba waxaynu u kornay inaynu dadkeena iyo taageeranayaasheena ay qaataan kaarka wixii ilaahay u qoray baa qaatay inta qaadatay inay ku mintido astaantayada waa garanaysaan waa fandaalka lagu foosay halka ku qoran iyo oo aniga ah golaha wakiilada astaanta labaad ee Mukhtaar Cabdi Maxamuud Baaryare deegaanka Burco wuxuu lambarkiisu waa lambar fudud isagana waa 110 ama 110 Mahad Cali Goodir Ariel TV Burco